sanadka oo dhan halkani waa sidaas. buurta Sheekh oo ka mid ah degmada Sheekh ka tirsan gobolka Saaxil ee Somaliland waxay tahay goob ka duwan goobaha juqraafi ahaan ku hareeraysan halkaasi. cimilo ahaanna ka duwan iyadoo ah goob dhulka in badan ka sarreysa waana sababtay inay hesho cimilo qabow iyo doog aan dhammaanayn. halkani dalxiisayaal badan ayaa isugu yimi dalxiisayaashan inta badan malaha magaalada Burco ayaa looga yimaadaa Sheekh walaal halkan dalxiisa jooga walaal ma waan tahay aad iyo aad walaal fiican alxamdulillah walaal de xagaad ka timi walaal waxaan ka yimi Burco Burco gartay magaca walaal Cabdiqani walaal dhahan cabdiqani ka waran jawiga haatan Sheekh kulli wadi ka dalxiisaya Sheekh waxay kamid tahay meelaha inta badan dalxiisayaashu ay yimaadaan marka bal adigoo cabiraya jawigaaga iyo farxadaada nala wadaag lahayn jawiga farxadayda cabiraya maanta halkan waxaan ku hayaa nimco wanaagsan doog baan ku daawalayaa waxaan dhawr baan ku daawalayaa waa jawi wanaagsan dalxiis wanaagsan ciyaalkii reetadii waxaan u sheegi lahaa waddankiina nimcata la ku kalsoonaada dalxiisa kale oo isna kamid ah dalxiisayaasha waqtigooda wacan ku qaadanaya buurta Sheekh walaal magacaaga walaal waxa la Sudaysi walaal xagaad ka timi Hargeysaad ka timi ma sha Allah malaha Hargeysa iyo Sheekh waxay isu jiraan dhowr boqol oo 200 iyo xogaa kilomitir waana meel aad u fog runtii Sudaysi ka waran ma markii kugu horeysay halkan timaada bishii walba qaar baan soo qaadaa waxaan talaagris kaaga taagan boontay maalin walba qaar baan soo qaadaa Burco Hargeysa meel walba laga soo qaado ka imaadaan saas waliba imka abaar ku tahay ku yar kala go'an yihiin laakiin dheeli waa la imaada Sheekh oo meesha Soomaaliland ugu qurux badan buurta Sheekh ayaa waxa lagu tilmaamaa luulka buuraha silsilada Golis oo ku yaala waqooyiga Soomaaliland halkani ayaa waxay tahay goob ay xiiseeyaan dadka dalxiisayaasha dhowr sababoodba saad arkaysaan halkani waxa ah cimilo aad u wanaagsan iyadoo naftana doojinaysa sidoo kale halkani waxay ka mid tahay meelaha ugu qaalisan ee hantida u ah Soomaaliland si kastaba ha ahaatee buurtani cajiibkay waxay ka mid tahay goobaha haddii maalgashi ballaaran oo dhanka dalxiiska lagu samayn lahaa noqon lahayd goobaha soo jiri lahaa dalxiisayaal badan taasoo noqon lahayd horumar taabagala oo dhanka dalxiiska ah Sakariye Ilyas Ahmed Jakarta wararka STN Bro